السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada youtube-keeni caabi technology of institute. halkan waxay nooga sii socday barnaamijkeenii Axis database. waxaan casharkeenii labaad kusoo qaadanay sideen xog ugu gurnay table-kan xogtan ayaan kusoo gurnay. casharkeena saddexaad waxaan u qaadanaynaa hadduu ilaahay ka dhigo sidee loo sameeyaa form. horta marka koobaad waxaynu ka sameynaynaa table-keena. horta marka koobaad waxaan is weydiinaynaa maxaynu uga baahannahay form. warkow maxaynu uga baahannahay form ama muxuu inoo qabanaya su-aashaas is weydiinaa. horta marka koobaad database-ku waa laba nooc. waa front-end, waa qeyb userku la xidhiidho ama inagu aynu la xidhiidhno, waa qeybta daatada aynu ka gelino. back-endiguna waa table-ka. front-endiga haddaan kusoo noqdo, front-endigu waa wuxuu inaga yeelayaa qurxintii iyo hagaajintii iyo waxyaalahaas oo dhan, laakiin table-ku inaga yeeli maayo qurxin iyo waxyaalaha. table-ka waxaa gacanta ku haya qofka ownership-ka ama qofka permission-ka u leh database-ka inuu hayo ama u arka. front-endigana waxaa la xidhiidha userka ma jirto database-ka wax toos loo geliyaa, laakiin waxaa loo soo marayaa maxay front-endiga oo maxay noqonayaa formki. su-aashaan intaasaan kaga jawaabay waan filayaa hadduu ilaahay ka dhigo. markaan sameynaa form waxaan tegaynaa, waan iska soo xidhaynaa, waxaan tegaynaa create, waxaan isla tegaynaa maxay form wizard. halkan wuxuu inoo soo saaray laba qaybood oo ah available fields iyo selected fields. horta table-keeni intan ka koobnaa. halkana waxaana lagu yidhi muxuu ka koobnaanayaa formkaagu. midmid waad u wareejin karaysaa, midmidna waad u celin karaysaa. waxaa wanaagsan inaad mar wada wareejiso, waxaad leedahay next. halkan waxaa lagu yidhi design-ku noqonayo weeyaan formkaagu, kaawad u dhaafi karaysaa, next baad leedahay. halkaa waxaa lagu yidhi formkaaga magaciisa aad ula baxayso ama title-ku noqonayo. waxaan usoo bixinay registration info, usoo gabanay information form baynu bixinaynaa, finish baynu leenahay. formkeeni imika wuu inoo samaysmay, laakiin wax qurxina iyo wax kale uu leeyahay ma jirto. formkeena markaan qurxino waxaan tegaynaa halkaa, waxaan tegaynaa design view, xaaladii maxay design-ka. marka formku laba xaalood buu ku jiraa, ama database-ku laba xaalood bay ku jirtaa, ama formku mar wuxuu ku jiraa waa design type, marna waa debugging type oo haddana loo yaqaano, ama mar kale loo yaqaano maxay running type. marka koobaad waynu hagaajinaynaa, waxaynu odhanaynaa halkan ina geey, kan inoo soo yaro durkii, kan aynu tegaynaa farta, soo yaro weyneynaynaa, homeka ina geey, dhexda keen, farta xooji, waxaad ka dhigtaa halkan, waxaad ka dhigtaa maxay madow ka dhig. marka koobaad formka markaad hagaajinayso wax color biniaadanka ama indhaha dadka wax yeelaya ama waxyaaladii ishu kasoo boodayso ka dhigi maysid moogti. farta soo yaro weynee, weli soo weynee, intaa ka dhig. way intaa markaan ka dhigay, tanina gee, intana gee, highlight garee, waxaad ka dhigtaa farta xooji, waxaad ka dhigaysaa maxay taa ka dhig, halkanayna gee, xooji, color c. footadii waatan, footadayna uma baahnay imika, waayo horta inaga horta footadu marka koobaad waxay ku wanaagsan tahay halkaa formka marka la geenayo, laakiin tan inoo qaadni mayso, inaga yeeli maayo halkaa inuu inoo tago, tan inaga delete garee. halkanaynu tegaynaa, waxaan tegaynaa maxay form, waxaan halkaa kasoo qaadanaynaa attachment-iga, halkaasaynu footada ku sawiraynaa. imika wuxuu inoo soo qoray unbound, isma fahansana footadan table-ka iyo footadan aynu soo gelinay, waan isfahansiinaynaa. halkaasaynu tegaynaa control resource, ishaasaad furaysaa, photo baad odhanaysa, kan inaga delete garee. footadu marka halkaasi ku wanaagsantahay, halkaa kana soo yara weynaysiiyey. way haddaba waxaan u baahannahay maxaan kale ka qabanaynaa formka, inaynu formkeena ka dhigno mid bob ah oo kasoo go-an oo la qaadqaadi karay. waxaan tegaynaa, halkaan tegaysaa, property baad leedahay, halkanaad tegaysaa, halkanaad kasii furaysaa, waxaad tegaysaa maxay
waxaad tegaysaa maxay detailska tegaysaa marka kuwaad form balkan red click baan ku leenahay property property-ga markuu inoo soo saaro halkan ayaan tegaynaa waxaan odhanaynaa formkii halkaa bob up baynu ka tegaynaa waxaan odhanaynaa yes way iminka formkeenii saasaynu ku samaysanay waxaynu ku qurxisanay waa sidaa way maxaan kala hadaba uga baahannahay waan save garaynaa right click baan leenahay close baan leenahay yes baan leenahay waka formkeenii halkaa inoo soo galay navigation barka ku dhufo waka formkeenii iminka waa mid bob up aynu qaadi karayno oo qurux badan way halkan waa record mar halkan waxaad ka odhanaysaa itus maxay waxaad odhanaysaa next recordka ku xiga last recordka itus baad leedahay new blank mid cusub ka diiwaan gelinayso waxyaalahaas oo dhan ayna qof cusub diiwaan gelin waxaan doonaynaa ID-ga si automatic inuu siiyo way waxaan odhanaynaa maxay dirir magaca dirir Salebaan haye last name-ka dirir Salebaan dirir waynu ka dhigay sama formkiisu intaas u sitaa haye waalidkiisu lambarkooda intaas sitaan date xaggan ka dooraynaa waayahay address-ku degan yahay wanaga hore u soo sameynay wadan buu degan yahay gender-ku yahay waa maxay waa mail sawirka halkaad ka soo gelinaysa aad baad leedahay picture-keenagii sawirkan ba soo geli okay microphone-keena waa save gareynaa iska soo inagii table-keeni waynaanu ka helaa xogta waa kaa dirir Salebaan dirir saarti marka formku aabkaasaa loo sameeyaa markaad iminka leedahay gabadh dhiiga ka soconaysa qofkii ku xigay waa kan qofkii kale saarti waxay dad ku jira formka markaan soo gelinay waa marka waxaad ka soconaysaa record navigation-ka ayaad ka soconaysaa ogaa qofkii ugu dambeeyay diiwaan gelin marka formku waa qaybta uu la xidhiidhayo user waa qaybta marka ay la xidhiidhaan client-ku marka wax database-ka toos loo geliyo ama table-ka xog toos loo geliyo ma jirto waxa loo mariyaa formka casharkaasi intaas inuu ugu eegaya insha Allah su'aalaha waxaan ugu soo diri karaysaa xawil.info@gmail.com casharka si dad badan u gaaro like garee share garee commentiga waa noo muhiim aad baan ku salaamaya insha Allah casharkeena waxay doonaa wax weeyaan waa relationship insha Allah. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.